kani waa sawir indhaha u roon marka ay maskax caafimaad qabto ay fiiriso 15 sano oo culays ahayd kadib halka kuwa midnimada iyo wadajirka ay dhibayso ay ku xanuunsanayaan marka ay arkaan ismada dhulbahanto oo midaysan hal aragti leh laaluush aan qaadanayn dadkooda taladiisa goynaya ayaga oo xor ah soo gugi gobaysan ama curan waa halku dhigyada inta badan loo adeegsanayo midnimada waa ismada dhaqanka gobolada SSC oo galabta dhex mushaacaya magaalada Garowe ee caasimada Puntland madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa soo dhaweyn iyo afur u sameeyay qaar ka mid ah ismada dhaqanka oo ku sugan Garowe ismada Garowe soo gaaray ayaa kala ah Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Garaad Cabdisalaan Xasan Suldaan Mustafa Awseed iyo Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi ismada ayaa maalinta biri la kulmi doona madax dhaqameed ka socda beelaha Hawiye iyo Dig iyo Mirifle kuwaas oo sida la sheegay dhexdhexaadin uga yimid Muqdisho si xabadda looga joojiyo Laascaano ciidanka Soomaaliland looga qaado gobolka Sool loona dhiso dawlad goboleedka Khaatumo oo ay doonayaan shacabku baraha bulshada ayaa aad looga hadlayaa faalooyin ay ka bixinayaan kooxda taabacsan hanaanka dhigyacabka Muuse Bixi kuwaas oo ay wadna xanuun u arkaan midnimada iyo muujinaya sawiradan oo garabta Garowe ka yimid